معلم waxaan ku weydiiyay maxaa keedkii u bilowday هذا نف ما يزني yaa ku sheegnaa neefeyn نف waxaan u maleeyay goolka alla inaxta in la fuutinayo garow waa caalami dadka gobol ay dhahaan laakiin gobol maaha sababtoo ah wadooyinkooda dhismahooda kala dambayntooda xidigaha garoonka leh sacab loo garaacay sacab loo garaacay hirshabelle guuleyso hirshabelle guuleyso haddii laga badiyo ballan waxaan qaaday inaan shaarbaa xiiro waa ballan hoygeeda yaan cidina gaadhayni koobkaba buntlandgeeya koobkaba buntlandgeeya koobkaba buntlandgeeya koobkaba buntlandgeeya معلم waxaan ku weydiiyay maxaa keedkii u bilowday هذا نف ما يزني yaa ku sheegnaa neefeyn نف أحمد يا كان أحمد يا سن سحر أساك صوت الماء سجن ساكا وربحنتي neefta u taqaanaa de neef هذا waxaa yahay هذا قرون كان لما دقيقة ما تشري كتير hadda way daqiiqay هذا واحد كسوق لنا سجار شرطي ما كده والله لحظة كده عبرتك كده ما يستر بس قرطة هذه ده كاس وش يجي galab wanaagsan oo qurux badan galabta waxaan joognaa magaalada Garowe dhankayga midig waxa taagan taageero weyn Idris Altes oo reer Liverpool waxa dalxiis bay u yimaadeen magaalada Garowe ciyaarta waa socota Idris ay ka war ciyaarta aad u maasantahay saaxib Garowe sida qurux badan nagula soo dhaweeyay maantana waxaan ku ciyaareynaa garoonka Mira Awaare oo ah garoon aad u weyn oo aan u maleynay sidoo yahay si ka qurux badan kana weyn iyadoo dad badan ay u soo daawasho tageen ciyaartiin wali waa socotaa hal gool ayaan leenahay marka kulankan waa kulan saaxiibtin isbarasho ah aad baa ugu faraxsanahay inaan kulankan qayb ka ahaado marka kulay reer Garowe kulay waa dad gob ah oo aan aad ugu mahadcelinayo qaabka ay sida qurux badan noo soo dhaweeyeen soo dhawo mar kale aan ku leenahay ka waran fikirkaad ka haysatay Garowe inta waxaan mulay markii ugu horeysay timaadid waa markii ugu horeysay ama ku banaanka uga baxo ka waran markii ugu horeysay aad timaanaysa Garowe fikirka ka haysatay iminka aad timid garow waa caalami dadka gobol ay dhahaan laakiin gobol maaha sababtoo ah wadooyinkooda dhismahooda kala dambayntooda runtii waa in badan xataa waxyaabo badan oo boqolkiiba boqol Muqdisho ugu fiican tahay jirto oo dhanka wadooyinka oo kale wadooyin caalami ah oo qurux badan oo dhisan xoogaa waxaan is leeyahay bulshada ku yar iyadana way soo badan doontaa insha Allah magaalooyinka hadda Muqdisho kale hal magaalo dad badan isku yimaadeen laakiin imin xaggan gaalkacyo Garowe Boosaaso dadku waa kala qaybsan yihiin magaalooyinka la wada camiraya alxamdulillah Altes iyo teamkiisa waa dhow halaan dheere Altes iyo teamkooda aad iyo aad u soo dhaweynaynaa soo dhaweyntooda iyo kulankooda iyo shaxshaxdooda saan kaga qayb galo anu gaalkacyaama kaga sharaf ikraam ii tahay inaan maalin walba mataqaanaa dhalinyaro qurux badan soo dhaweyno aad iyo aad baan leenahay waxaan leenahay welcome to Garowe haafku baa dhacay Idris Xarajeen gool badan garoonka kala saaray yes hadda lagu tuuray Idris hadda coachkiina waa kan hadda ku soo tuuray hadda midig waxa taagan sidoo kale Shaafiinho oo waxa weeye safar asaguna dalxiis uga yimid magaalada teamkan dalxiisayaasha ku jiray ciyaartu hadda ku jiray ka war ciyaarta iyo haafkan gool baan leedahay horta korneel aad ugu dhawahay bartan YouTube-ka caalamiga ah dabcan dalxiiska aad u qurux badnaa aan Garowe ku nimid magaalooyin kala badan oo Puntland oo ku tagi doona soo dhaweyntan loo sameeyay kulankan banooniga ah oo aan hadda halka gool leenahay qaybta koowaad aad ugu raaxaysanay ka waran markii ugu horeysay ma aha fiiro markii labaad sida sheegtay muuqaalada daawaday ka waran sida laga soo dhaweeyay magaalooyinka hadda waxaan rajeynayaa in loo socotaan dalxiiskiina iyo qaabku ahaa iyo naga warbixin wallahi dalxiiskan Muqdisho kaga nimid oo Garowe ku nimid aad ugu qurux badnaa aniga waa markii labaad oo aan halkaan imaado Garowe la markii la lahan horaan boorsooyinka ka soo qaatay taas waxay ku tusinaysaa Garowe dad gob inay joogaan soo dhaweynta ku wanaagsan loo soo xiisaayo mar saddexaad mar afraad in ay imaado waa rajeynayaa ده صورة قش حتى إن نحكي دقارة. سودو إن شاء الله هاف بمرة عيارة تقول بالله هين حرجينا أنا وحوي. أقول إيش أنا أقول إيش وعموم اللي يقول كلا نحتاج نلف وتناي. وكده إن شاء الله.
halkan waxay la joogtaa sunta saacido ah taageero weyn oo ah dhanka martida ka socdaani aad iyo aad ka waran dhalinyarta iyo soo dhaweynta aad sameynaysan iyo ka waran magaalada Garowe iyo ciyaarta ma sha Allah horta kulan fiican baa meeshan la ciyaaraya oo soo dhaweyn oo loogu talagalay dhalinyarta nooga timaaday magaalada Muqdisho waa dad xagga gob weyn waqti markii loo tago soo dhaweyntooda aad baan uga helaa laakiin insha Allah anaga naga helaan baan rajeenayaa kulamo saan kale oo kale waaweyn ee loo qabtana waa rajeenayaa hadii Ilaahay idmo waxa la yiraahdaa anu kala reer ciyaareed ma ahayn waa soo qasba marka ciyaar daawanayo way war ciyaaraha daawada bacsigeediis bay ani wali kaabkii waxa u daawaday xoogaa xamaasada rabe bishii aad daawanin ciriira dareemay stress bay ugu furmay marka go'aan waxa ku gaaray ina iska daa ciyaar daawada xitaa ina wali kaab daawada iska dhaaf xitaa ina kooxaha daawada go'aan ku gaar hadda laakiin wixii kulamo maaragtay dhalinyarta amarti loo sameeyay qasabay ina imaado ma sha Allah inay ku farxaan warajiniya soo dhaweyntan inay ku qancaan warajiniya وانا كفرحسنينا maanta isoo dhaweysay ina maaragtay aniga soo dhaweysay ku leeyahay ina maaragtay igu soo dhaweysay kaamiradaada adigana wareysiga qaado insha Allah waxa rajeenaynaa ciyaarta intay ka dhamaanayso oo aad la socon doontaan insha Allah ilbaxnimada gurigeeda goboladu magaaraani mabana dirbaha goole mabana dirbaha goole mabana dirbaha gool mabana dirbaha goole gool galabta waxaan ku sugannahay garoonka kubadda cagta ee Garowe ee Mira Awaare oo ay ku ciyaarayaan ciyaar saaxiibtinimo wariyaasha caasimadda Muqdisho iyo wariyaasha caasimadda Garowe oo romaantii galabta ku ciyaaray ciyaar aad u qiimo badan oo aan soo dhaweynayo anoo ah gudoomiyaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Nugaal ciyaaraha isdhexgalka ee wariyaasha iyo guud ahaan xidii hore cuslaaday inay ku ciyaaraan caasimadda Garowe aad ay sharaf noogu tahay hadda ciyaartu waxay maraysaa 1-1 welina way socotaa natiijadeeda waxa weeye waa hordhac waxaan rajeynaynaa insha Allah taala inay dhalinyaradu iyo wariyaashu ay tartamaan oo ciyaaraan oo isdhexgalaan oo xirfadooda wariyanimo kaliya mooyaan xirfadooda kubadda cagta inay mihnadooda ay banaanka soo dhigaan aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa martida ee ka timi magaalada Muqdisho oo wariyaasha ah ganacsatada ah qaybaheeda kala duwan aad iyo aad aan u soo dhaweynayaa rumaantii hadeertan aan la hadlayo insha Allah taala waxaan rajeynaynaa inay magaalada ay tagaan ciyaar ku soo ciyaaraan biidnillaahi kariim marka soo dhawaada wariyaasha caasimadda Garowe waxaan rajeynaynaa magaalada Muqdisho ayagana lagu martigelin doono aad ciyaartii waa nala fogaatay Muqdisho 3 Garowe 1 ciyaar qurux badan oo galabta ka dhacaysay garoonka Mira Awaare ee magaalada Garowe anigu waxaan kamid ahaa taageerayaasha ka soo qayb galay ciyaarta waliba laba shaqaan isku hayay taageerana waa ahaa qaybta meediyaana waa ahaa marka أنا waxaan taageeray Garowe aan watay waa ka xumaa laakiin hadda wala la fogaaday 3 iyo 1 iyo waxba la sii marsiinaya insha Allah waxaan rajeynayaa kulanka caawa Ma City Arsenal ina Arsenal badiso si galabta looga bidiyo kale waxaan aad u soo dhaweynayaa dhalinyarta martida ah oo naga yimi safarka dheer Muqdisho oo dalxiis u jooga wadanka aad baan u soo dhaweynayaa hafteen hore waxaan maleeynaa ciyaartu tii raggu breach ahayd waxa ku dhacday 1 iyo eber laakiin hadda raggu waa isbarbar leeyahay 3 iyo maqlaya iyo 1 baa maqlaya ciyaartooda waa gabagabay ku dhowdahay 3 iyo 1 bay maraysaa waxa 3 iskale wariyaasha mitalay magaalada Muqdisho ciyaartu xilliga hore way adkeyd laakiin hadda gadaal la isku yaacay aad u soo dhaweynana dhammaan dhalinyarta dalxiiska u yimid Puntland ay hogaaminayaan waxa weeye wariyaasha Muqdisho iyo cid walba oo dalxiis u timaada Puntland iyo Garowe gool kale hadda la dhaliyay waxa dhaliyay Shafino waa dhaliyay goosha afraad 4 iyo 1 bay maraysaa aad la isugu dhaqaaqay ilbaxnimada gurigeeda goboladu magaaraani mabana dirbaha goole mabana imika waxa dhankayga bidix taagan muddo soo dhawow waxa way tiimkii ka yimid magaalada Muqdisho
maasha Allah ka war ciyaarta galabtiisa ku soo dhawaatay waa maasantahay kaabe runtii waa idinkaga mahadcelinaynaa ciyaarta ku furgaraysan hadaatiin warbaahinta garowe waxay ciyaar weyn oo laga soo qayb galay dhinacyo kala duwan haday noqoto halaha maamulka Puntland xiriirka Puntland warbaahinta iyo sidoo kale shacabkaba marka sharaf aynu ahayd maanta in halka ku ciyaarno waxaana dareennay inaan joogno magaaladeena oo kale ciyaar waxay xamaasad leh weliba roob ku soo aaday jawi macaan gool la iska dhaliyay 4 gool 8 gool ciyaarta ka dhashay marka waa isku daatay marka ma ahayn ciyaar yani fudud ma ahayn waxay ciyaar farxad leh oo labada dhinacna isku barbar dhaceen ma sha Allah ciyaartu afar waa dhamaatay iminka tiimkan waxay u socdaan magaalada Ayr dalxiis ka waran dalxiiskiina iyo guud ahaan Puntland iyo wallahi garow marka hore waxaan qorsheynaynaa joogno hal maalin laakiin hadda 3 maalin la marayna already waxaa laga yaabaa garow hal isbuuc maalin dhiibisa maanta xagga taga biri xagga taga ilaa hadda garow balma ku leena ka dhamaalaana marka iyadana waa soo kala kici doona insha Allah tagi doona aadaan ugu sugayaa qardaan naga sugayaa marka ma naqaan xiliga Muqdisho ku laaban doon ma naqaan insha Allah soo dhawaada garoonka xog baa lagaaga saaray iyo askari garoonka iga saaray maxkamad baa la tigsanaya askarigaas sii socdo waxa kuwa ka garanaya mid kale maxaa ariga garoonka laacib in la bedelo ma ahaanba uma qalmin galabta xataa waa la soo galabta kabtanka waxaan falaayir kaliya tooti kadib kabtanka la baxay garoon ciyaar caalamiya leef loo daawanaya kabtanka la baxay hadda waxa la dhigi karaa tootiga Soomaaliya marka askarigi garoonka xoog iga saarina maxkamada ka dacweynaya shaarbahaygina way badbaadeen waa haysanaya haddii laga badilaa shaarbahaas waa tegi lahayd limani ka waran ciyaarta galabtii say u dhacday ka waran aysi aad baa u mahadsantahay iyo saaxiibadaada kulan qiimo badan oo ujeedkiisu ahaa sida isku dhex gelilaaya dhalinyarada Soomaaliyeed ayna halkan ku qabanay anagoo ku soo dhaweynay dhalinyaro ka timi magaalada Muqdisho oo dhalinyaro iyo ciyaaryahano iyo wariyaal isugu jiray runtan waxa kamid ahaa tiimka kooxda Muqdisho oo aan u doortay inaan kamid noqdo maadaama saaxiibad badan oo dhanka kubadda aan isla fahmi karnay halka ku jireen waxa weeye saaxiibadeedii aan isku miinada ahayn baa ka soo horjeestay maanta runtii 4 bay ku soo dhamaatay laakiin saacad baa ugu xumaay waxaan jeclaa in saaxiibada safarka nooga yimi ay guul loo heydaan yimani waxa uu ka tirsan yahay warbaahinta Puntland taasoo tahay wuxuu ka garab dheelaya oo la jiray Muqdisho warbaahinta ka socotay maadaama dhexgalka bulshada aad looga shaqeynayay insha Allah cid walba waxa uu timaadaa Puntland iyo garaweba soo dhawaada muuqaalkeena intaas ku soo gabagabeynaa aad u mahadsantihiin thank you